walaalaha reer Jomo isla markaana maalmihii ayna soo dhaafnay ceelo ka dayactirayay qaybo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar isla markaan hadda ceelkii labaad ku dayactiray tuulada Jowhar Soomaali ayaa maanta waxa la soo gabagabeeyay dayactirka ceelkaas warbixin umuurtaas ku saabsan waxa dhameystiraya Cabshakuur Cabdullaahi Axmed Cabshakuur Shaasha kani waa ceelkii labaad oo laga hirgeliyo bishan gudaheeda tuulo hoos timaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ceelkani hirgeliyay alla ka sokow gabdhaha reer Jomo raxmadi eebe dushooda ha ahaatee horaantan bishan May aynu ku jirno ee sanadkan 2017 gabdhaha reer Jomo waxay ceel biyood noocan oo kale ka hirgeliyeen tuulada Daanyeeray oo kamid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ceelkani ay ka qodeen tuulada Jowhar Soomaali gabdhaha reer Jomo uu noqonaya ceelkii labaad oo bishan gudihiisa ay ka qodaan tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar iyagoo u soo marinaya barnaamijka Shaasha Care oo ah barnaamij lagu caawiyo dadka masaakiinta lagu qodo ceelasha laguna dayactiro masaajidada iyo dugsi quraanada haddaba qaar ka mid ah dadka degan tuulada Jowhar Aylo ama Jowhar Soomaali ayaa uga mahadceliyay gabdhaha reer Jomo iyo barnaamijka Shaasha Care sidii ay u suurta galiyeen alla ka sokow inay helaan ceel biyood biyihiisu macaan yihiin quraanka idinku salaami dulkii oo unka oo meehan hooshaan naaga qabtay ilma Jomo hooshiis noo soo dalabtay shaashaah waa noo qabtay asxanta jisaaka Allah ma alma rasuul wiil jiro walaal jiro waa noo qabtay ceelkii oo soonkiisii oo dhibka iyo dhibaatada aaga jirnay alxamdulillah hadda soonkan durduran aan ku aroorhayna hadda biyan ka shubto hayna alxamdulillah ilaahay waa noo gargaarkan ilaahay xaqiiqas naga yimid adiga nuu soo dhiibi hadda waxaan rajaynaynaa wixii si eelanahay in nasiisid goob caafimaad ma haysano ayhan iid arafa oo soon fura soo socota oo soon qaad حبدو تميرو اسكربني إنانو كنتي إنانو نسكو كيلو سكر إنو كنتي تو اسكجعلناه وهيا داسا نو كنتي أن نراه أن إذن كأمانه أن إذن كبعينه أن واتاسي إلهي إذن كمهات علينه واجعلناه سيدي سكرونه واجعلناه أمانك سلامة ولكن شاشة عيال كانوا بسوء دبيسي بيلا أنا يا هايسي عبسيات ساعة تضوى ساعة بيو دفريني وهذا كماس انت فيت نمويدا بيو ودنا وحانا كعرفنا كعسلنا أنفر أنك صاغنا بأدنا وعسي ما تعيد كاسنا كعرفنا أنفوران كعرفنا جوب عفمات كعرفنا قفتنا وفولنا إسماعيل جيسنا وعرفنا عبد تدوس سياسة على فولنا ما عيدنا جو إسبارة على المرمى كرو جوب أو بطول دين أو سميس عرفنا هذه إن عستي أنفورنا نوصل دلال شاشة ومقلة تركي ومجمع وانيمات علينا أتنا أنفورنا نوصل دلال عيركو قولة ستية. أنا جوا بدوني هالطولة جور سومالي qolada macnaha oo noo dhistay ceelka noo dhistay aad ayaan ugu mahad celinaynaa alxamdulillah ilaahay ayaa mahad iskale oo intaas macnaha soo waafajiyay ilma Jomo waa idin mahad celinaynaa maadaama oo ceelkii maanta nala dayactiri oo biyaha ka aroornooyno ma sha Allah horta taas waa idin mahad celinaynaa tan kale inta waxaan u baahanahay goob caafimaad unugii saacaas naga xanuunsado oo la roorno habeenkii saacaas fool naga qabato oo la roorno intaas aan iga codsanaynaa idinkoo mahadsan halkan waxaan ka salaamaa walaalahayna ilma Jomo ma santiin salaanta islaamka ani salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka dib waxaan ani mahad celinayna hambaliyo aan idin soo direynay ceelkii maanta aan ku guuleysani aan hadda dhaansanooyno aad uma santiin haday bijir nadaafad ma jirto biyo bijir nadaafad ma jirto bil aan abaar waaye aad aan u faraxnay nafta biyo nolosha dhan biyo waabo bil aan nolol ma jirto waanu dagaasheen walaalahayna waa mahadsantiin hambali ayaan soo diraa tuulada Jowhar Soomaali aniga Ahmadiin Ibrahim Xaaji ilaahay ha u naxariisto qof walba oo u naxariista walaal muslima oo dhibaataysan gabdhaha reer Jomo ayaa ah gabdho mudan in lagu daysado waxaana muddo bila gudahood ay biyo siiyeen
laba tuulo oo hoos timaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana dadka tuulooyinkaasi deganaa ay uga mahadceliyeen reer Joomow uguna duceeyeen in Ilaahay muraadkooda adduunyo iyo kooda aakhiraba sahlo muxsiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dunida dacaladeeda waxa barnaamijka Shaasha Keer ugu baaqaya in uu bilaaban doono barnaamij loogu magac daray afuri saa'imka oo qof walba oo muxsino oo Soomaali ah uu u soo marin karo barnaamijka Shaasha Keer waxaana barnaamijkaasi lagu afurin doona dadka aanan awoodin inay afurka helaan isla markaasina gutay waajibaadka bisha barakaysan ee Ramadaan Cabdishakuur Shaasha Africa Cable TV Jowhar